waxaabaha u noqon siyaasi hunguridoona xildoona dantiisii ka shaqeynayo. Waxa dhimanaya waa adiga, wax dhaawacmaya waa adiga, wax ilmihiisa iyo mustaqbalkiisa beeri doona waa adiga. Qofka hooyadiisa ooyi doonto waa adiga, qofka xaaskiisa ay oon doonto waa adiga. Cajaladaha maanta Soomaaliya ka socdo waan soo aragnay 2 sano ka hor, waan soo aragnay 10 sano ka hor, waan soo aragnay dhowr iyo 10 sano ka hor. Halka ay ku dambeeyeen waa la ogyahay. Maxaa dan kugu jiro haddii shaqadan sida la rabo loo qabto ama lagu guuleysto? Adigu ma tihid qofka kursiga fuuli doono, adigu ma tihid ninka meesha madaxweyne ka noqon doono, adiga ma tihid ninka meesha ku faa'iidi doona ee ku raaxaysan doono. Mar walba waxaa tahay 200, 250 ilaa 300 ayaad u dhexin doontaa. Maskaxdaada waa inay shaqeysaa, caqliga waa inuu shaqeeyaa. Siyaasiyiinta maanta isku dhagan berri way heshiin doonaan. Waad arki doontaa iyagoo Muqdisho wada jooga, hotel Jazeera ka wada shiraayo, hal mucaarad iyo hal cadow iyo hal maxal dhahay baalka iyo yihiin. Maskaxda waa inay shaqeysaa, waxyaabaha qaar waa inaad ka fiirsataa. Xamaasadda iyo dareenka iyo wax social media ka socda ay ku saameyn. Meesha hadda u socotaan ama ka daata ama ka dega ama qabsada, laakiin yoolka loo socdo maxaa waaye natiijada saxda haddii la gaaro adiga ma tihid ninka yoolka gaaray ama ninka ku faa'iiday adiga ma tihid. Marka mar walba waa inaad dantaada ka shaqeysaa, wixii dan ku ah waa inaad ka shaqeysaa. Guuleysta.